gabadha iyadoon la furin meel lagu furay ayna jirin intay ummaddaas oo fadhiistay Soomaali Maxamed tiri waa la furay waa ku qabaa ima qabtid guurka ciyaarta laga daayo waxa haboon hadii la kala tago waji fiican uu kala tago oo aan la isxaqin hadii la isxaqto ceebtiina u banaanka imaanaysa laakiin wax kale oo markaas sharaf ah oo aad keenaysin social media dhaxdiisa wallahi ma dhacayso in social media wax soo dhigtid aad sharaf ka heshid oo aad gurigaaga uga sheegaysid in lagu sharfo ma soconayso taageerahayga waa sida qoyskayga waxay ii dhiirigeliyaan sida military waxay ila taliyaan sida aan u daalin ila soo raabkayga wax ka baa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waan salaamay dhammaan mad Soomaali meel kasta joogtiin waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan wanaagsan ما شاء الله قصور هذا مقال كله عصب فضل عصور المعالي سود وجود كذا وسوى جبران وقف كلا أنا وقف كلام جبران نتيسي قصور مقال كله عصب مقال كنت أنا قد حروان لما نقول هذا على صاحبتي وصوب بيتي وحين ليه thank you so much ده قرط برجال وصوب وقتين حدنا سبسكرايب كي وصارتين أدي قصور هذا مقال كله عصب مقال كان ما أنت كحل إنه ومسلسل كي بريء عنده في كسعودي يوتيوب كان مسلسل كاسو أهل ماني هوري كان تيجي فرحان يرسل رئيس كل تو مالك سو عاركنا جواب علم سيد السوق جماعي اللي جابس رؤانتي وعن قليل كسر هذا وعن كلنا سيد ما أنت حالي سوسو جوابين فرعيرة يا سوا هاللي سو فرين صاد دري رزم هو جوابتي بل أنسلا أرجع واقو قبا إما قبتت بل أنسلا اللي يسمى حتى قبل يدون الفرين من لغو فرع عيني تشيلين أنت ummaddaas oo fadhiistay Soomaali Maxamed tiri waa la furay Okay waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar arinta uu dhahay waxa tahay gabadhii ayadoon la furin intay Soomaali Maxamed soo horfarsatay tiri waa la furay warkiis waa la maqasheen xaqiisana waa ka soo dhageysteen kulay wuxuu yiri waxa tahay gabadhii ayadoon la furin oo la qabo tiri waa la furay okay horta arinka oo aan leedahay anigu ma furin haddaba ani i furin markaan ku dhahaa waad i furtay oo inta soo fariistay dadka ay wadiyaan guys maqlayseen ma arkayseen ba waxay iyada leedahay waad i furtay 6 bilood ka hor ayaad i furtay isagana wuxuu leeyahay gabar aan la furin ayaa tahay oo markaas aad soo gelinaysaa idoo lagu furin aad social media soo gelinaysaa waa la furay taas hadda inta soo gudbo horta isaga mid baan leeyahay mid aan leeyahay waxay tahay haddii aad furtay iyo haddii kalaba kulitaba shalay dad kugu darsaday dadkii shalay kugu daray eelkeedii ayaad kala xiriir lahayd mayse ahayd inaad soo gelisid social media waxa tahay gabar la qabo ama gabar aan furay taas waa ceeb talabaad iyadan waxaan leeyahay walaalay joog oo waxyaalahan aad soo boos gareynaysid jooji oo dadka waxba soo boos gareen oo waxyaalaha aad ka hadlaysiin ee sharaftiina dilay iska dhaafa sidoo kale baryahan dambe waxaan arkaynaa in ay arinta u wadaan si musalsal ahaan ah oo hayaacdo ah oo iska socota ah oo qof kasta wax uu maankiisa ka rabo soo gelinayo runaantii waxyaalo badan oo noloshiina ku saabsanaa waad soo geliseen oo dadka social media ku jira dhammaan way arkeen maalinba waxaad soo gelisiin arrin kale oo markaas iyadana naxdin leh oo markaas oo noloshiina haddana ku saabsan ayaad social media kusoo wadeen horta taas waa laga wanaagsan yahay haddii aad kala tagteenna kulitaba shalay idinkaa is doortay oo dadka social media ku jira maysis ku kiin darin cid maqraati ii ka aheenna ma jirin idinkoo isguursaday ayaan aragnay haddana idinkoo kala tegay oo dhahay waa kala tagnay aan aragnay haddii weli dhib ii haysto ama arrintiina ay dhib ka taagan tahay waxaa fiican bilixsaanik inaad u laabatiin waalidiintii okay farxaanow haddii aadan gabadhan furin iyo haddii aadan furtaybo ehelay leedahay qaraabay leedahay dadka social ku jira ma aha dadka shalay kugu daray dadka shalay weydiistay ma aha dadkaas ayaa mudan inaad ugu laabatid gartaas oo iyaga aada u bandhigtid bil Ramadaan lagu jiraa dadka maanta inay soomanaayeen noocan soo gelisay sidoo kale guurka ciyaarta laga daayo haddii aan saa ku wadin maalin kasta أنا وحسمي أنا ساسمي ضد بدنا بقول كسكت عفاي أو دنيرة بل إله يكون دارشي كومنتيجين آخرية كومنتيجي أسوق لسان آخرية وهواي ضد بدنا أي سكت عفاي إني جور سلام مركا وعلى يدي لها
run ahaantii wax kasta oo jira arrin kasta oo imaada qoys waaliya oo isku dhaca waa la isfuraa waa la kala tagaa laakiin baash sumcadeeda ama sharafteedu waxay ku banaan tahay ama ay ku fiican tahay in aan social media waxba la soo gelin oo dadka noloshaadii hore aad u soo bandhigin meesha waxaan ka arkayaa in la dhahayo waa kala tagnay iyo maana kala tagin oo wali waa isla joognaa qof la furay wali ma tihid waxyaalo noocaasa marka bilixsaanig codsiga aan igu soo dirayno haddaan dadka social media isticmaalo youtuberada Soomaaliyeed waxaan idin lahaa familkaas si kastaba iskula joogan ama kala tagaane inay ilaaliyaan sharafta iyo sumcadda uu guurka leeyahay dadku way isguursadaan wayna kala tagaan markaas waxa haboon haddii la kala tago waji fiican lagu kala tago oo aan la isxaqin koltabo haddii la isxaqto ceebtiina u banaanka imaanaysa laakiin wax kale oo markaas sharaf ah oo aad keenaysiin social media dhexdiisa wallahi ma dhacayso in social media wax soo dhigtid aad sharaf ka heshid oo aad gurigaaga uga sheegaysid in lagu sharfo ma soconayso dadkana waxa way kala tagaan wayna isguursadaan laakiin waxa ayaan darro ah inaad markaas social media isugu jawaabtiin aad markaas ka aflagaadisiin aad markaas waxyaalihii noloshiina qaaska igu ahaa aad markaas kusoo bandhigtiin meeshaas haddii aad xataa cunto isiiseen cunto anaa ku siiyey waxyaalaha noocaas ah wax aad iyo aad looga naxo ama wax looga maaragtay looga xumaado waaye markaan waxaan ii dhihi lahayn bilixsaanig waxyaalaha qaarkood bal ilaaliya oo ka dhaafa oo meesha waxay ku habboon yihiin ka dhiga haddii ay ka tahay barankii oo fiisa ku raadinaysiinna ama waxa isla ogtiin ay yihiinna oo dad heshiiye aad tihiinna adeeryaal ha nagu ciyaarina oo dadka ha ku ciyaarina oo dad sooman ha ku ciyaarina laakiin haddii waxaan dhab ay ka tahayna dadka qorshe iyo waxbay ku heshiin jireen si wanaagna u kala tagi jireen ama isu dhaqan jireen meeshiina micnaha ku dhaqda war waxay leeyahay assalaamu calaykum inta soo gudbeen muuqaalkii fadlan hadda keenin wakaareel galay hadda ka heshan like sar assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala malahan horta qofka wanaagsan lama aflagaadeeyo aflagaadadan adaa keensaday ma fahanti aniga codadkayga meelaha la soo fariistay okay intaad khiyaantay been u sheegtay xataa ilaahay ku abuurtay been u sheegtay waxaan aragnay maaha waxaad samaysay wallaahi oo bilaaw xataa waxaan maqalnay maaha intaad u sheegtay been quman maaha xataa waxaa tahay gabadha iyadoon la furin meel lagu furay ayna jirin intay ummaddaas oo fadhiistay Soomaali Maxamed tiri waa la furay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar arrinta uu dhahay waxaa tahay gabadhii ayadoon la furin intay Soomaali Maxamed soo hor fadhiisatay tiri waa la furay warkiis waa la maqasheen xaqiisana waa kasoo dhageysteen kolay wuxuu yiri waxaa tahay gabadhii ayadoon la furin oo la qabo tiri waa la furay okay horta arrinka oo aan leedahay anigu ma furin haddaad ani furin markaan ku dhahaa waad furtay oo intaan soo fariistay dadka ay wada yaabanaayeen la isku wada haystay social media isla wada qaylinayay ayaa inta soo farsato ayaa waxa dhiileed ani rasmi ma furin beena sheegaysaa waxa ka soo wareegatay 6 bilood intaante xilli yani aad kala tagnay macal cudud hadda iskugu soo laabanani adi nama dhaxtaalo brother intaante hadda kula macaanaaday oo aad furnin ma furin aad soo dajisatay filan kole taas waa